halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xaaja ka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay taa ambalaas waxa dadku qabanaysan ambalaas nimaada bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkani waa alxaqiiqa. faallada barnaamijkeenu maanta waxa weeyaan huwantii ay garaadadu dagaalka ku hogaaminayeen iyo cabdimadoobe oo argaxiso ah oo laga xukumo jubbooyinka amiirka al-shabaab ka xukumo. dagaalkii ay dadkooda ku hogaaminayeen way ku jabeen, taladoodii xumaydna way ku jabeen, waxaanay iminka go-aan ku gaadheen khiyaamo in loo dhigo somalilan. arrintaa inaan idinla wadaago ayaan barnaamijkeenu maanta khuseeya. aan bilaaba dagaaladii ugu dambeeyey horteed waxaa la diyaariyey 900 oo nin oo macawisley iyo dhalinyaro la tababaray oo tababar degdega loo qabtay oo meelo kala duwan oo dhowr meeleedba loogu qabtay oo soo baxay 900 oo infantry ah. labadii dagaal ee ugu dambeeyey ayaa haddii alla kuu rumahay dhaawac iyo dhimashaba 600 ay fadhiisteen. dagaaladii waa lagu khasaaray. dhaqaalihii u soo socday ee uga yimi qurbaha 600,000 oo si qaldan loo daba socdo mukhaabaraadka u daba socday baa lagu qabtay meesha lagu dhaha Nairobi oo lagaga qaaday oo lacagtii dagaalka lagu wadi laaya. halkaana jab baa ka soo gaadhay khasaaro weyn. waa arrin muhiima oo la hubo xogteeda aan hayo. hadda xamar waxaa lagu qabtay container kii labaad oo qalab military ay ku jiraan oo qalabkan habeenkii lagu dagaalamo iyo haddii alla ku run yahay qoryahan diiradaha leh sniperska ah iyo isgaadhsiintan casriga ah militariga u isticmaalo drones yaryar qalab noocaas baa xamar lagu qabtay. qolada reer muqdisho waxay dhahaan waxa loo siday argagixisada joogta Bu'aale iyo Jubbooyinka meesha qure maanta ay fiidgaraysaaye ay quudisaaye ay haddii ka shaqaysiisaaye saldhigga u ahay waa Lascaanood. amiirkii labaad bay usoo magacowday cabdimadoobe oo ku-xigeenkiisa ahaa la dilay. hadda kii horena waa la dilay, isagana waa dhaawac. markaa araabtaa la qabtay ee xamar lagu qabtay waxaa lagu soo waday oo la keeni lahaa Lascaanood oo lagula dagaalami lahaa. bal horta intaanan faallada wada gaadhin ila daawada muuqaalkan nisa ay ku qabatay containerkan nabad sugidda iyo sidoolka qaranka oo sidii aan shalayni la wadaagnay wuxuu ahaa hal container ayuu ahaa wixii shalay la qabtay. maantana kii labaad oo daba socday ayaa ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan. waxay taasi muujinaysaa awoodda ciidankeennu yeeshay iyo sida uu mar walba diyaarka ugu yahay cid kasta oo rabta inay dhagar ka geysato dalkan ay gacan bira ugu qabanayaan. waan u hambalyeynayna jasaakumullahu khayr baan leenahay. haddii aan wax yar ka tilmaamo waxyaabaha ku jira containeradan waa wax aad loola yaabo, very sophisticated. waa drones, waa night vision oo koofiyadda habeenkii wax lagu arko, waa qalab habeenkii baabuurka lagu wadi karo, waa tuushas iyaguna ku xidhmo, waa sniperska dadka lagu meel fog wax looga toogto. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waxaasoo dhan waxay ku jiraan gacanta dowladda. waxaa kaloo jira iyadana qalab kale oo lagu qabtay airportka muqdisho oo aan iyadana la wadaagi doono shacabka Soomaaliyeed oo ay yihiin isgaarsiinta qalabka ay isticmaalaan si ay uga maarmaan markay operation iyo waxyaabaha sameynayaan inay ku tiirsanaadaan isgaarsiinta caadiga ee maxalliga dadkooda isticmaalaan. marka waxaan marar badan iyo marka laba hambalyo u direynaa geesiyaasha wiilasheenna hortaagan shacabka Soomaaliyeedna. waxaan leenahay waxa lagu helay wax kasta oo la helo waa wada jirkiina iyo la shaqayntiina dawladda si lama laab. waxay la tahay inaad daawateen dadka badankiisu reer Soomaaliya waxay u haystaan argagixisada joogta Soomaaliya koonfurteeda ee Jubbooyinka joogta in alaabtan loo waday. taa Jubbooyinka joogta waa halkii u sarreysay waa taliskii guud
laakiin halka saldhigeed maanta militariye ay ku xisaabtamayaan ay xooga ku leeyihiin ay ka dagaalamayaan waa laascaanood alaabtana waxay iman lahayd laascaanood oo lagaga dagaalami lahaa waxa kaloo aan ognahay in lacag lagaga qaaday nimanka garaadada ah in daroon loo soo iibinayo niman ay yurubta bari ka soo iibinayaan oo haddii alla kuu roon yahay raadkeedii la daba socdo iyadana waxaa xogtaasoo dhan aanu ka helaa dad baan ku dhex leenahay gudahooda 3 dad ku dhex leenahay gudahoodaan dad ku dhex leenahay aanu rumaysano oo aan surmaseegta lahayn oo xogtooda aanu ku qanacsannahay nimankaasi waxa kaloo ay hub ka dalbadeen nin sheekha oo yamanaya oo jooga yaman ninkaa lacagtii arfaanskay way siiyeen intii kalena way ka ballameen ninkaasi bil iyo bar buu qabtay hubkaa inuu keenayo waxaana ku jira gantaale 8 kilomitir wax ka gubi kara oo gaadiidka gubi kara hubkaa kala nooca iyo qalabkaa intay sugayaan ayay ku shireen maanta iyo xalayba inay somalilan khiyaameeyaan oo ay ku khiyaameeyaan xabad joojin ay la qaataan inta hubkaas u imanayo si dagaalka looga daayo haddii dagaalku laakiin uu socdo waxay istuseen inaanay maanta awood haynin oo ay ka baxayaan fadhiyada ay meelaha ay joogaan oo dhan iyo saldhigyadooda waxa ay samaysteen dad gudaheenna jooga oo arrintaa kala shaqaynaya xabad joojinta oo khadka isugu jiraan cabdirasaaq khaliif niman xisbiye sheeganaya oo maalin dhoweed lahaa waxaanu u heshiinay waxaanu u midownay dowladda nimankaasi dowladdaan u midownay waa nimankii cabdirasaaq khaliif guddoomiyaha baarlamanka ee maanta dagaalka ku jira inoo keenay ee meesha saaray maxamuud xaashi buu ahaa kii maalintii dhoweyta lahaa lexjecla dalka iga haysa haddii lexjecla dalka ka hayso cabdirasaaq khaliif wuu yaqaanay muu keeneen maanta uu dagaalka ku jirana uu isagu keenana somalilan soori kuma odhan taladaa waan ku qaldanay waxaan ogahay inay wada socdaan oo ay xidhiidhaan isaga iyo xirsi iyo cirraba ay la xidhiidhaan waxaan ogahay in cid kale oo arrintan ku lug lahayd oo dibadda somalilan ka ah inay xidhiidh la leeyihiin sababta waxaa dembiga intaa leeg dalka looga gelayana garan maayo hadday muuse uun tahay la dagaalama dee muuse la dagaalami maayan waxna yeeli maayan dalkii bay la dagaalamayaan maxamuud maalin dhaweytuu hadlay oo uu lahaa lexjecla dalka iga haysa sidan uu yidhi bal la dhegeysta waxaa lagama maarmaana in daraf saddexaad iminka uu dee arrinta soo galo oo uu dhexdhexaadiyo xal anigu waxaan u arkaa wafdigaa ka yimi muqdisho ee magaalada hargeysa jooga ee laascaanood soo maray odayaasha in labada dhinacba kalsooni siiyaan inay u hoggaansamaan inay isu soo dhoweeyaan oo ay isu jiidaan isu afkartaan halkaa caawa meel dhaantaa ma jirto maxamuud wuxuu inoo sheegay daraf saddexaad in la soo geliyo meesha nimankaasi dhammaantood waxay sugayeen in somalilan dagaalka lagaga guulaysto kii ay inoo keeneen oo guddoomiyihii baarlamanka ugu sarreeyeyna waa kaa dagaalka ilaa maalintii ku jira oo haddana khadka isugu jiraan 24/7 khadka isugu jiraan lexjeclo cidday ka haysaa nimanka ururada furtay waa nimanka warkooda caddeeyey cabdilaahi darawal baa ka mid ah mujaahid cabdilaahi darawal oo warkiisa dhayda ka caddeeyey oo farta ku fiiqay inuu ina qalif khadka ka baxay oo dagaal dalka kula jiro waxa ka caddeeyey oo ka bareeray cabdilaahi dahab waxa ka caddeeyey dhayda oo ka bareeray ibraahim mahdi buuba saddexduba guddoomiyaasha ururada saddexduba waxay ka bareereen dagaalka laynagu wado iyo cabdirasaaq khaliif kaalintu kaga jiro maxamuud xaashi iyo haddii alle kuu roon yahay cabdiraxmaan ciro iyo faysal calraaba inoo keenay nin quri ilaa maanta kama hadal way ka warwareegayaan faysal wuu ka warwareegaya qudhiisu laakiin kuma xidhna maanta isagu qolada kale way isku xidhan yihin laakiin faysal laftiisa waxaan leeyahay sida raggaa keyrkaa ee dalka adigaa xaliba difaacaye hadlaye sida keyrkaa u badheedh oo ummadda ka raali geli ninkaad u keentay inuu qaldanaa oo uu dalka la dagaalamayo ayaan leeyahay faysal waxaan ku soo koobaya hadalkaygii anigu military ma yihi aqoon military ma lihi qof walba aqliga inta ilaahay siiyey buu laakiin hadlaa aqoontii kale haddee ilaahay siiyey xog badanna waan hayaa waan helaa waagii baryaba xogtaasina waa informationku waa power marka anigoo isla doonanaya informationkaygii iyo caqligii ilaahay siiyey iyo xogtii aan hayey waxa ii soo baxaysa inaan nimankaan la eegan oo aan la sugin inta hubkaas u imanayo oo khiyaamadii ka dhacday ka bilaabantay hudheel xamdi iyadoo gogol loo fadhiyo
iyo maraaxilkii nabadda loo soo maray ee ay diideen in wax laga barto mari dage allaha dago baa lidhi mar labaad dagase anaa istagay waxaa nimankan qura la gudboon inaan xabadba lagu ridin magaalada gudaheeda oo aan ciidanka la gelin dhufaysyada guryaha loo samaystay iyo gudadka la qotay xoogga haddii la saaro un waddada imika dhabasaar lagu durko oo koonfurta magaaladana laga godoomiyo waddada barigana la godoomiyo labadaasoo qura haddii somalilan awooddeeda suu geyso nimankaasi way jabuma hadhin maanta maalin ay ka liitaana ma jirto haddii kale waxaa siiseen fursad ay ku helaan hub kale oo cusub iyo rag iyo dhaqaalaba oo haddii ay sii daba dheeraato maanta weji kale yeelanaysa marka waxaan leeyahay nimankaa gudaheena laga samaystay iyo haddii aan la kuu royin nimankaa khiyaamada ku heshiiyey ee aanu xabad joojinta khiyaamadoodii noqotay yaanay mar labaad inad khiyaamayn waxaan kaga baxayaa allah yow nin daacada allah yow nin daalina deeqdaada hoosin وقالي نبضي وقالي نبضي من قماتي وبلدي وقالي نبضي وقالي نبضي من قماتي وبلدي وقشقي أم المري وقشقي أم المري إذن كبا قياسو هدي أنغلو تشيرين مياد غيري لهايدين هدي أنغلو تشيرين مياد غيري لهايدين وقضب سؤاله قفوا لباس ديتها أن هوقاتو ليه وقضب سؤاله قفوا لباس ديتها أن هوقاتو ليه من قبوين يوم مما نباقب إسقانينا عسقداري من قبوين يوم مما نباقب عسقانينا عسقداري